waxaan maanta idiin haynaa wargelin ku saabsan baraarujinta caafimaadka. insha Allah waxaan aad u rajaynaynaa inaan kurtigiin wada aragno. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان bulshada Soomaaliyeed waan salaamayaa. waxaan maanta idiin haynaa wargelin ku saabsan xaflad ku saabsan baraarujinta caafimaadka oo lagu qaban doono Roundwood Unity Center oo ku taala Brent Church Road maalinta Sabtida ee bisha tahay 15 waqtiguna waa 12 aroornimo ilaa 6 fiidnimo. barnaamijka waxaa isku soo dubariday mashruuca Brent Health Matter oo mashruuca iska kaashadeen Brent Council iyo NHS. anuu waxaan u shaqeeyaa NHS oo qaybta aan ka soo gelayaa. marka halka waxa idinku diyaara barnaamij runtii aad u ballaaran. waxaad ka heli doontaan baaritaan caafimaad oo isugu jira in dhiigaaga laga fiiriyo sonkorta, in dhiigkarkaaga la cabiro, in miisaankaaga la fiiriyo. waxaa halka ku diyaara group dhan oo waxa isugu jira dad matalan pharmacist, nutritionist, dhakhtar GP jooga. marka waa arrin aad u muhiim ah runtii. waxa kale oo iguna jooga dad bartay caafimaadka dhimirka. waxaa halka idinku diyaara dhammaan dadka adeegyada bixintooda badan oo ka socda Brent Council. waxaa jooga shirkadda Catalyst oo iyadu centerka maamusha, iyaduna hadaad ka kireysteen guryaha shirkadda Catalyst iyaguna way joogaan. waxaa kaloo jooga dhammaan ururada bulshada Soomaaliyeed ee Brent oo iyaguna soo bandhigi doona hawlaha ay u qabtaan dadkooda. marka fadlan ka soo qayb gala. waa xaflad aad u muhiim ah. waa markii ugu horeysay xaflad Soomaalida u gaar ah loo qabto, inkastoo dad kalena u furan tahay. marka fadlan ka soo qayb gala, isgaarsiiya. waad mahadsantahay. waxaan muhiimka rabaa inaan ku wareejiyo Hinda oo iyaduna ila shaqeysa oo kolleegayga. marka Hinda soo dhawo. mahadsantahay Xasan. Assalaamu calaykum dadkeena oo dhan Soomaalida bulshada dhan oo na fiirsanaysa maanta. kolleegayga oo Xasan u sheegay aniga Brent Council dhankiisa baan ka socdaa. waxaan xalfadan ugu talagalnay dadkeena dhan inay iskugu imaadaan kurtigiina meesha aad joogtiinba Brent hadda aad degantiin iyo xaafadaha agtiisaba inaad iskugu timaadin. insha Allah waxaan wada aad iskugu xoognayna iskugu imaano inaan meesha dadka oo caafimaadka si fiican u yaqaanin sida guryaha dhibaatada haday naga haysato haday employmentka ee dhibaato naga haysato wax dhan isku keenay. programka oo Brent Health Matters-ka wuxuu bilaawday just COVID-ka markuu dhacay wixii ka dambeeyay dhibaatada badan oo dadkeena ku dhacday. qaarna oo jiradaas aad noogu dhacna qaarna ay ku dhinteen. maadaama saasay tahay Brent Council iyo NHS ku isku wada imaadeen si dhibaatada ay dadka bulshada u haystaan wax uga qabano. waxaa kaloo nii sheegaynaa dadka ee ilmaha waalidiinta haystaan hooyooyinka mise aabooyinka xalfadda waxay kula jirtaa ilmaha waxay ku dheelaan waan u keenay saa idinka waqti u haysatiin aan dhaqtariinta wax dhan u aragtiin. waxaa kaloo iyaguna jira aqoon isweydaarsi ku saabsan caafimaadka. gaar ahaan waxaa aad looga hadli doonaa macaanka ama diabetiska iyo caafimaadka dhimirka, mental health. marka dad waxaa iman doona khubaro ah oo arrimo aad u yaqaana. waxaa kaloo isaguna imaan doona dhakhtarro Soomaaliyeed oo ku takhasusay arrimaha caafimaadka dhimirka iyo dhakhtar takhasus ku caafimaadka indhaha. marka please ka soo qayb gala, ka faa'iideysta fursadaas. insha Allah waxaan aad u rajaynaynaa inaan kurtigiin wada aragno. isku wada geysiya WhatsApp-ka, isku wada dira, Facebook-yada dhiga, social media-giina dhiga, TikTok-ka dhiga. adiga aad jeceshahay oo ku badan tahay, ku mashquulsan tahay, kaasna noo wada dhiga. insha Allah kurtigiin waan arki doonaa Saturday-da 15 October 11 to 6. balanteenu waa 15 October maalinta Sabtida haddii Ilaahay yiraahdo. insha Allah. waa mahadsantihiin.